soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Abdifataax Durdur halka aad nagala socotaan waa Durdur podcast caawa muuqaalkeeni waxaan ku falanqeyn doonaa Mareykanka iyo Iiraan oo la filayo in toddobaadkan ay kulan ku yeeshaan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga haddaba kulankaasi maxaa laga filan karaa haddii uu fashilmase maxaa dhici kara qodobka ayaan dabcan ku falanqeyn doonaa marka la soo dhawaada haddii aad horey inagala joogtay nala joog haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir wixii aragtidaada ahna halka hoose ee commentiga inoogu reeb hanaga iloobin in aad subscribe noo saartid channelkeena waa hagaag haddaba maanta maxaa dhacay Mareykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkan qorsheynaya in ay kulan ku yeeshaan magaalada Ankara ee caasimadda dalkaas Turkiga iyadoo ay wadamada dariska ah sida Qatar iyo Masarna ay abaabul iyo fududeyn kulankaasi ah ay ku jiraan ujeedada kulanka ee la filayo toddobaadkan ayaa wuxuu yahay in laga hortago dagaal guud oo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe iyo in lagu xaqiijiyo khilaafaadka u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka wada hadal ee aan lagu xallin xabad iyo wax la mid ahba xog laga helay mas'uuliyiin gobolka ka tirsan ayaa lagu sheegay in wakiil ka socda madaxweynaha dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Steve la filayo in uu kulamo muhiim ah uu la qaato mas'uuliyiin sarsare oo ka socda Iiraan kulanka ayaana gudaha dalka Turkiga uu ka dhici doona ama caasimadda dalkaasi Turkiga ee Ankara toddobaadkan aan ku guda jirno ama toddobaadka soo aadan ayaa la filayaa in kulankaasi uu dhaco Mareykanka ayaa si dadban u sheegtay in Iiraan ay diyaar ula tahay wada hadal lagu heshiisiinayo si loo xalliyo buu yiri khilaafaadka ee labada dal u dhaxeeya haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay hadda xaaladda siyaasadeed ee u dhaxeysa Iiraan iyo Mareykanka waa mid noocee ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay in uu furan yahay wada hadal diblomaasi ah inkastoo uu sidoo kale sheegay in ay jiraan dhismo ciidan awood badan oo lagu hayo gacanka Faris taas oo muujinaysa in Mareykanka waliba diyaar garow military uu ku jiro haddii wada hadalada la filayo Ankara in ay ka dhacaan uu fashilmana ay xaaladu isku bedeli karto mid la isfarsaaro ama dagaal uu ka dhaco Iiraan ayaa ku adkeysanaysa dhankeeda in wada hadaladu aysan dhici karin hanjabaad iyada oo jirta isla markaana ay cadeynayso Iiraan in ay diyaar u tahay wada hadal cadaalad ah balse sidoo kale ay ka digtay in wada hadaladaasi aysan hanjabaad iyo cagajugleen ku jirin iyadoo ay sheegtay haddii la waayo cadaalad in Iiraan ay diyaar u tahay in ay dagaal la gasho Mareykanka iyada oo la filayo in wada hadal ay labada dal dhexmara ayaa haddana hanjabaadihii hawada isu marinayaan haddaba doorka Turkiga ee wada hadalkaasi iyo dalalka kale waa mid noocee ah Turkiga ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya sidii uu u dhexdhexaadin lahaa Mareykanka iyo Iiraan wuxuuna ku baaqayaa in arrimaha si tartiib ah looga wada hadlo gaar ahaan barnaamijyada kala duwan ee muranka dhaliyay ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan dalalka Qatar iyo Masar iyaguna door weyn bay ka ciyaarayaan waxayna sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii kulanka loogu qaban lahaa Ankara taas oo ah dadaal ballaaran oo ujeedkiisu yahay in la yareeyo xiisadda gobolka oo maalinta ka dambeysa marxalad cusub lagu halgalaysay dadaalkan ay wadaan Qatar, Masar iyo Turkiga ayaa la filayaa inuu noqdo mid miro dhala laakiinse waxaa laga digayaa haddii dadaalkaasi uu miro dhali waayo in dagaal qarku u saaran yahay in uu ka qarxo gobolkan Bariga Dhexe haddaba xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iiraan maxaa markeedii hore sababay khilaafka asalkiisa waa mid noocyo kala duwan khilaafkan u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan wuxuu salka ku hayaa dhowr arrimood oo muhiim ah midda koowaad waa barnaamijka
nuclearka Iran iyo isku dayga Mareykanka ee uu ku doonayo inuu ku xakameeyo bacriminteeda iyo waliba taageerada Iran ay u fidiso kooxo military ah ee gobolka ka jira sida Hezbollah iyo Xuutiyiinta ka dagaalanta Yemen iyo koox kale oo hubeysan oo Lebanon iyo Iraq iyo meelaha ka dhisan iyo sidoo kale waxyaabaha sababay oo asalka khilaafka Mareykanka iyo Iran kamid ah waxa weeyaan cadaadis military oo dhanka Mareykanka iyo waliba hanjabaadaha ah iyada oo adeegsanaysa ciidan xoog leh oo ku sugan gacanka Faris ayaa markasta Mareykanku wuxuu hanjabaad u dirayay Iran iyaduna waxa ay isku dayaysay markasta in ay jawaab celin bixiso waana asalka khilaafaadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran qodobo ka mid ah xiisadan ayaa sidoo kale sii kordhisay markii Iran lagu eedeeyay dilalka mudaaharaadayaasha gudaha taasoo keentay cunaqabatayn iyo waliba diblomaasiyad adag oo la saaray Iran waana waxyaabaha sii kordhiyay khilaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran haddaba maxay tahay ujeedka ama ujeedooyinka laga leeyahay wada hadaladan hadda u dhaxeeya ama la filaya inuu dhexmaro Iran iyo Mareykanka ujeedada wada hadaladani la filayo waa in laga hortago dagaal in ka badan hal warbixin ayaa waxa ay xusayaan in wadamada gobolka ay doonayaan in la joojiyo khilaafka ka hor inta aysan isku bedelin dagaal buuxa oo ka qarxa gobolka oo dhan saameyn ku yeesha dalalka gobolka oo dhan sidoo kale ujeedka ayaa wuxuu yahay in la xalliyo khilaafaadka waxyaabaha keenayna meesha laga saaro mushkiladahan xalintooda ayaa waxaa inta badan salka u dhigaya in laga hadlo xiriirka nuclearka Iran iyo Mareykanka sidoo kale arrimaha amniga gobolkana waa muhiim oo wada hadaladani waa la filaya in looga hadlo iyo yoolka diblomaasiyadeed ee labada dhinac waa Mareykanka iyo Iran iyadana waxaa la filayaa in ujeedooyinka ee wada hadalkan inay qayb ka yihiin sidoo kale in dib loo bilaabo kalsoonida labadan dal ama dib loo dhiso kalsoonida labadan dal waa ujeedka wada hadaladan ee la filayo inuu dhaco isbuucan ay qayb ka tahay labada dhinacba waxay rabaan in baaqiyo diblomaasiyadeed laga helo mustaqbalka fog inkastoo arrimuhu ay aad u adag yihiin haddana natiijada ee laga filayo iyo ujeedada kulankan ayaa waxaa ah in baaq laga soo saaro khilaafkaas ee ragaadiyay dalalka dhaca bariga dhexe haddaba maxaa dhici kara wada hadaladani kadib laba ayaan u kala qaadaynaaye waa fursadaha wada hadalka iyo caqabadaha iyo waliba khatarta aan saddex iraahdo haddii aan ku hormaro fursadaha wada hadalkan haddii kulanka Ankara uu guuleysto waxaa suuragal ah in la helo nidaam cusub oo wada hadal ah oo u horseeda heshiis ballaaran oo ku saabsan arrimaha gobolka bariga dhexe doorka Turkiga Qatar iyo Masar ayaa muhiim u ah sidii lagu abuuri lahaa jawi lagu kalsoonaan karo oo wada hadaladaasina ay ku guuleysan karaan haddii aan eegno dhinaca caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qiyaasta weyn ee kalsooni la'aanta ee u dhaxeysa Washington iyo Tehran ayaa waxaa leeyahay wada hadaladan ma guuleysan karaan waa qiyaasta laga haysta boqolkiiba 5 gaarsiisan in wada hadaladaas ay guuleystaan Iran ayaa sidoo kale sheegtay in aysan aqbalaynin in wada hadal lagu galo hanjabaad military iyo waliba caga jugleyn Iran waxa ay taagan tahay wada hadalkan waan wada galeynaa waan wada hadleynaa laakiin haddii ay hanjabaad ku jirto diyaar uma nihin dagaal ayaan diyaar u nahay maxaa marka khatar ah oo laga filan karaa kulanka haddii wada hadalku uu fashilmo waxaa jirta khatar sii kordhaysa oo isku dhac military ama dagaal ballaaran oo u dhaxeeya labada dal ah taasoo qalqal gelin karta guud ahaan gobolka bariga dhexe dalal badan oo Carbeed ayaana shacabkooda barakici doona haddii dagaal halkaas uu ka qarxo
waa sababta hadda dalalkan ay isku xilqaamayaan oo u doonayaan in wada hadalkan uu bilowdo misna noqda mid guuleysta. gunaanadkii wada hadalada Mareykanka iyo Iiraan ee la filaya inuu Ankara ka dhaco waa tallaabo muhiim ah oo ka dhan ah halista colaadeed ee gobolka, iyada oo Mareykanku muujinayo fursad diblomaasiyadeed, Iiraan ay diyaar u tahay wada hadal cadaalad ah. haddana kalsooni daro siyaasadeed iyo hanjabaado military ayaa ka dhigaya wada hadaladani mid aad u khatarsan oo u baahan feejignaan iyo istiraatiijiyad foolka fool ah. haddii arrintaasi lagu guuleysto, jawiga siyaasadda iyo xaaladda gobolka Bariga Dhexe wuxuu noqonayaa mid nabdoon, xasiloon, misna isbedela, horumarna hiigsanaya. aduu sidee ayaad u aragtaa in Iiraan iyo Mareykanka ay wada hadal ku yeeshaan Ankara? maxaase laga filan karaa? aragtidaadu waa inoo muhiim. halka hoose ee commentiga ah inoogu reeb. aad ayaadna u mahadsantahay.